ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي دمان ومدايدا ميل كستا جوجتان. I hope دمانتين لدنتين حافظات قبطان لمحيسنتين ميل كستا حلي كستا إيه ساعات كستا يدينتي الله سبحانه وتعالى يدكو حفتي وإن نبي يسكسون نغنية نذر فيديو وانو نادية محافظات قبطان من محيسنتين إلهي وحن كريتشانيا ميلا جوجتان الله يدكو حفتي حافظات قبطان لمحيسنتين ولا الله كذا لنا قصو بيرو ويلكم سودو هذا ميل يدكو تشعليا ولا الله يجي هرو ويلكم باك دمانتي ومحيسنتين جزاك الله خير. فضلا فيديوga like saara share karayaan subscribe like to dhirigelin weynayay noo tahay insha Allah bismillahi karim. maalmahan busy baan ahaa qolkii ayaanu ku jirnaa masha Allah laga raali hada week hore Friday dimaan sameeyeen marka insha Allah bismillahi karim maanta waa Friday iyo faa'iido ilaahay maalin kasta faa'iido iyo mid khayr lahayn nooga dhigo weekii hore iyo maanta oo anaga habeen khamiis noo tahay jumca soo galayso oo jumca wanaagsan aan idin leeyahay jumca wanaagsan waa caaw bishii labi sagaalaad 22 weeyo habeen jimcaha ilaahay jimca khayr meel kasta inuu joognaba hay nooga yeelo insha Allah bismillaah jimcaha kan oo bisha 22 tahay iyo jimcihii horeba ayaan weegan isku sameynay masha Allah maadaama weegi hore busy noqday insha Allah bismillaah karin waa ka 150kii 75 weegi hore iyo 75 weegi kan masha waxaynu save gareynay marka lagu daro 150 kan $2175 $2175 waxa inoo haray 805 waxaynu xidhnay bishii saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad iyo sagaalaad oo hal week kaliya uu inooga haray masha Allah Allah ya barak 7 bilood baynu xidhnay masha Allah waxa inoo haray October November iyo December hadii ilaahay raali ka noqdo iyo week soo socda oo September ka haray Allahumma barak masha Allah ilaahay noo dhigo dhammaan walaalahayga family saving family gaygi another week kala inoo xidhnay masha Allah uga waxaanad u dhaqaaqin ayaan dhammaan shalay bay had goorteenu bilownay maantana waa ta insha Allah bismillaah karin hada yalsan waxaad save garaysa adiga ay faa'iido ku tahay insha Allah waxaan idin la qaybsanayaa laba budget oo ah mid wiil single ah oo degan magaalada Berbera masha Allah inaan single oo dhalinyaro ah ayaa budgetkiisa ila soo qaybsaday ilaahay khayr siiyo masha Allah sidoo budgetkiisa kharashkiisa u budget gareeyo iyo gabadh walaasheena oo degan magaalada Nairobi iyadana kharashkeedii insha Allah bismillaah karim gabadha Nairobi aad ayaan budgetkeedu ugu faraxsanahay masha Allah wayna mahadsantahay dhammaan dadka budgetka ila soo qaybsadana aad ayaan ugu mahadceliyay jazaaka Allah khayr gabadhan walaa hooyo 4 caruur haysata xaafada Islii degan $700 soo gasho 700 ayay ku nooshahay si fiican ugu degantahay guri 2 qol iyo fadhigiisa bay degantahay masha Allah ilaahay hoo barakeeyo 4 ciyaal bay haysataa ay ku tira 4 jirka ugu weyn oo wax wali iskuul aaday ama dugsi aaday kuma jirto marka walaashii waxa soo gala $700 $700 nolol fiican ay kaga nooshahay waad ila arki doontaan marka sometimes waxaynu focus ka saarnaa ama inuu isweydiina Allah lacagta inta lagama soo gasho dad badan baa Nairobi degan oo qayb 2,000 qaataan qayb 3,000 qaataan qayb 1,000 qayb 1,000 qayb wax qaataan weegi hore budgetkii ugu dambeeyay I think inay ahayd gabar 700 qaadata oo Kenya degan masha Allah gabadhan maanta masha Allah 700 bay qaataa marka waxaan rabaa in ay dadka wadankii jooga ama Kenya jooga ama Afrika jooga ay arkaan in lacag kasta lagu noolaan karo masha Allah ma aha lacagta ku soo gasho muhiimadu waa kharashkaaga iyo meesha aad degan tahay dad badan oo Islii degan ayaa maanta oranaya 700 gurigaanu ku kireysanahay gabadhana 300 oo wax yar dhiman ayuu gurigeedu yahay masha Allah bismillaah karam 300 buu oran karna lacagta markay hadba Kenya marna way kacdaan marna way qaali garooda marka muhiimadu waxa weeye dadka iyaga qurbaha joogana aniga sidaan budgetka Soomaalida oo bilaabay budgetka ajnabiga ma ahan Soomaali waxyaabo badan ayaan ogaaday oo wadankeeni soo dadka wadankii qurbaha joogana anagana waxay noo tala glimpse oo kale wax yar baan waxaan ku arkaynaa sida Soomaaliya loogu nooleeyo sida Kenya loogu nooleeyo sida Afrika wadamada kale loogu nooleeyo oo hadaan rabno inaanu guurno hadaan rabno inaan wadankan xooga idea yar baan haysanaa yani wadanka noloshiisu ay tahay korontada gaaska biyaha cuntada inkastoo magaalo kasto oo Soomaaliya masha Allah kala duwan tahay hada Berbera oo kale inaan kala budgetkiisa sameeyay dadkana waxa la leeyahay Berbera aad u jaban tahay Hargeysa iyo Berbera oo wax yar isu jira hargeysana masha Allah very qaali weeyaan Berberana aad u jaban tahay marka insha Allah ku jeclaan lahayn leela soo weerad Soomaaliya ka joogtay I would love to inaan arko sida looga nool yahay iyo lacagta inkastoo aan ogahay inaanay lacagta qiimuhu ahayn ay tahay qofka kharashkiisa iyo guriga uu degan yahay marka waxay dadka wadankii joogana waxay arkayaan sida dadka kale u nool yihiin qaybtood annaga ayaga qurbaha joognana waxaan arkaynaa oo noloshii hadda sidaan budgetka u sameeyay waxyaabo aad u badan oo aan Kenya ogeyn ayaan arkay Soomaaliya sidoo kale marka waxaan arkaynaa waxayna siinaysaa idea ma aha dadka dhan isku soo nool yihiin
qof kastaba meesha uu joogo ama qurbo joog ama qurbaha joogin nolosha aad ku jirta iyo nolosha dadka kale ku jira isku mid ma aniga iyo gurigan igu xiga dariskayga isku si uma noolin isku kharash ma galo waxa laga yaabaa hada guryaheenu inay isla leeyihiin laakiin saas way tahay hadana kharashkeenu isku mid ma marka insha Allah bidmilaahi karin muhiimadu waxa weeye kharashka kusoo gala intee buu leeyahay moor kharashkaagu badan yahay moor lacagta aad bixisaan ay badan tahay weeyaan marka insha Allah bidmilaahi karin daawasho wanaagsan gabadha walaasheen aad ka ugu mahad celinaya oo joogta Nairobi iyo wiilka walaalkaya oo jooga Berbera oo waliba wiilsi kala insha Allah bidmilaahi karin daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين سو دوادا إن شاء الله بإذن الله فيديو كان وحوي ويل دليرة أو سينجلة أو دكان مقالة بربرة ما شاء الله إذا كان إنكم كسوكلا والله $100 جورجا كريديسة ولا بقول كورنتادا وتضباطا راشينكا سيديتن قطرة يهلبكا أفرتنيشن internetka 25 gaaska gaadhiga 80 hooyadii wuxuu tiraa $100 ma sha Allah wuxuu kharashkiisu wuxuu noqday $600 exact income soo galay wuxuu $600 $600 waxay noqotay hooyo boqolkeeda iyo kharashkiisa oo dhan insha Allah bidmilaahi karin wuxuu rajaynayaa in uu lacag save kareeyo oo bilaabo si uu lacag u save kareeyo ilaahay irsaaqada ha wasiiyo aad ayuuna u mahadsan yahay walaalkay ma sha Allah bajada oo ah reer family oo Nairobi degan hooyo iyo 4 caruur oo yar oo awali wax iskuul aada iyo dugsi aada jirin oo ilmuhu aad weerar yihiin ma sha Allah hooyadan waxa soo gala $102,500 waxay ku tiro $700 marka dollar loo bedelo guriga krediisu waa 42,000 korontadu waa 2,000 gaasku waa 2,000 internetku waa 1,500 qashinku waa 500 shaqaaluhu waa 3,000 waan weydiiyay waxay ku tirnaabtu maalintii ay timaada guriga ay iga klin garaysa dharka iga dhaqda ilama seexdo wayna tagtaa soo kliniga guriga iyo dharka iyo waxa ay sameeyay tiri raashinka 27,000 qudrada iyo hilibka isku jira 15,000 caanaha 9,000 kashkeedii wuxuu isku noqday 102,000 income soo galay wuxuu 102,500 kharashkeedii oo dhan wuxuu noqday 102,000 waxa uu soo noqday 500 gabadha tan waxay tiri hadii ilmuhu xanuunsadaan hadaan shopping u baahnado wixii extra ama walba uma baahno laakiin odayga ayaa noo soo dira laakiin bil walba $700 ayaa loo soo dira insha Allah bidmilaahi karin qof walba meesha uu joogo ilaahay ku xifdiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته